salaama daawadayaal halkani waa channelka wararka Somali News ku soo dhawaada tabinteena qodobada ugu waaweyn waxa qaybka Qodbadii xalay Madaxweyne Farmaajo oo sababta hadal hay badan iyo tilaabo uu kaga aarsanay ra'iisul wasaare Roble oo qaaday Farmaajo faahfaahin dheeraad oo laga helay dagaal xalay kula wareegeen al-shabaab saldhigyo ciidamada dawladda iyo kuwa Shabellaha ku lahaayeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabellaha dhexe dhalinyaradi Soomaaliyeed ee tababar ugu maqnaa dalka Eritrea oo qayb ka mid ah oo soo goosta soo bandhigay xogta dhalintaasi halka ay ku dambeeyeen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo dhalinyaro Soomaaliyeed u magacaabay xilal sarsare ee dawladda Mareykanka iyo Ethiopia ee Mareykanka oo ka wada hadlay arrimaha xaaladda cakiran ee Ethiopia ka taagan qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahin doonaa tabinteena ee wararka Somali News ee u diyaar garooba mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa 11 January bisha koobaad sanadka 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahino haddii aynu ku hormarno madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay jeediyey qodbad dhinacyo badan taabanaysay qodbada Farmaajo waxa uu hadlay dhinacyada amniga dhaqaalaha xiriirka dawladda Soomaaliya ee la leedahay dawladaha caalamka iyo sidoo kale horumarada kala duwan oo ay ku tilaabsatay dawladda muddada uu hogaaminayay sidoo kale Farmaajo waxa uu soo dhaweeyay heshiiska cusub ee doorashada laga gaaray ee shirka golaha wada tashiga qaranka ee 2 maalin ka hor lagu soo gabangabeeyay magaalada Muqdisho isagoona madaxda ugu baaqay in heshiiskaasi ay gaareen ay ku dhaqmaan Farmaajo ayaa qodbadiisa ku qaran ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda dawlad goboleedyada ay mas'uul ka yihiin qabsoomida doorashada dalka inkastoo aysan xusin magaca ra'iisul wasaaraha intii ku guda jiray qodbadiisa balse uu ku soo gaabsaday golaha wada tashiga qaranka arrimaha doorashooyinka madaxweyne Farmaajo ayaa inta badan qodbadiisa waxa uu kaga warbixiyay dawladda ay dawladdu sameysay dhanka ciidamada qalabka sida isagoo ku bogaadiyay sida nafta hornimada leh u difaacayaan dalka iyo halgankooda ka dhanka oo ay kaga soo horjeedaan ururada nabadeedka ee ku sugan Soomaaliya dadaaladeenii iyo qorshayaasha hirgale ee dawladda ciidamada qalabka sida waxay horseedeen in maanta ciidankeena geesiyaasha ay si awood leh hanashada amniga guud ee dalka ay uga wareegi rabaan gabagabana uu yahay qorshaha amisom ay Soomaaliya kaga bixi lahayd Farmaajo ayaa sidoo kale ka warbixiyay hanaanka siyaasadda ee arrimaha dibadda ee dalka waxa uu sheegay inuu ku dhisan tahay wax wada qabsi iyo sidoo kale ixtiraam dalalka caalamka iyo ilaalinta sharafta iyo sidoo kale madax banaanida dalkeena taas oo horseeday inaan si mugle uga dhax muuqano fagaarayaasha caalamka ayuu yiri Farmaajo siyaasaddeena arrimaha dibadda ee ku dhisan gobonimada waxay horseedeen inaan si mugle uga dhax muuqano fagaarayaasha caalamka sida xubinnimada golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay oo aan ku guuleysana markii labaad inaan madaxweyne ku xigeen ka noqono golaha guud ee qaramada midoobay haatana u sharaxanahay golayaasha ammaanka ee midowga Afrika iyo qaramada midoobay ayaa hadalkiisa lagu daray madaxweynaha madaxweyneedkiisa dhamaaday ugu dambeyntii Farmaajo ayaa booriyay shacabka Soomaaliyeed iyo midnimada wadajirka ay furo u yihiin jiritaanka awoodaheena qarannimo wuxuuna xusay in doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku aadan midnimada iyo dawladnimada difaaca dalka ay door aan la hilmaami karin ay ka qaateen su'aalaha hadal haynta badan dhaliyay ee intii qodbada madaxweyne Farmaajo ku guda jiray waxay ahayd in la fujiyo sawirkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cadde oo hore ugu dhaganaa goobta qodbada ka jeedi jiray madaxweynaha madaxweyneedkiisa dhamaaday Farmaajo balse xalay sawir la'aan uu qodbada ku jeediyay sidoo kale intuu Farmaajo ku guda jiray qodbadiisa ma soo hadal qaadin ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble taasi waxay muujinaysaa xurgufta siyaasadeed ee u dhaxaysa isaga iyo Roble oo wali meel sare taagan oo heshiis aan laga gaarin Farmaajo waxa uu sheegay qofka soo hantida shacabka Soomaaliyeed musuqmaasuqda in ay adduunka kula xisaabtami doonaan tii aakhirana ay ka dambayso sidoo kale madaxweynaha madaxweyneedkiisa dhamaaday ayaa ku faanay dawladdiisa muddada ay xilka haysay hantidii ay ku amaaneysteen shacabka Soomaaliyeed inaan la boobin ama aan la musuqmaasuqin hadalka madaxweyne Farmaajo oo xalay xilli dambe baraha bulshada lagu baahiyay ayaa sidoo kale waxa laga dhadhansan karay inuu xilligan doorasho diyaar u yahay isagoona xuseen xaaladda haatan uu dalka ku jiro looga samata bixi karo doorasho hufan oo waqtigeeda lagu soo gabangabeeyo sida uu hadalka u dhigay Soomaaliya xilligan waxay ku jirtaa xaalad siyaasadeed oo kala guur ah waxaana inta badan ay khilaaf xooggan oo soo kala dhaxgalaa muddooyinkii ugu dambeeyay madaxda Soomaalida taas oo arrimaha siyaasadda ay isku maadhaafsan yihiin markaana faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helaya weerar al-shabaab xalay ay ku qaadeen saldhigyo ciidamada dawladda ay ku leeyihiin
deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada dhexe oo khasaare kala duwan ay ka dhasheen. Wararka inooga imaanaya gobolka Shabeellada dhexe ayaa sheegaya in saaka aroortii hore dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka Qalimo oo waqooyiga ka xiga degmada Balcad ee gobolka Shabeellada dhexe. ila wareedyo deegaanka ayaa inoo sheegan weerarka kadib uu xigay dagaal kafool oo dhexmaray ciidamada xoogga dalkii Al-Shabaabkii weerarkaas soo qaaday. Al-Shabaab ayaa ka hadlay dagaalkaasi ayaa guula ka sheegtay waxayna shaaciyeen inay la wareegeen gabi ahaanba gacan ku haynta deegaankaas oo muhiim u ah isku socodka magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellada dhexe ee maamulka Hirshabeelle. warka ka soo baxay Al-Shabaab ayaa inta lagu daray inay fuliyeen Al-Shabaab weerar ay cagta ku mariyeen saldhigyo ciidamada ayna ka qaateen saanado military waa siday Xuseen macad ilaa ay hadda khasaaraha ka dhashay rasmiga dagaalkaasi balse ila ka agdhow ee deegaanka ayaa xaqiijiyeen labada dhinac ee dagaalamay ciidanka dawladda iyo Al-Shabaab soo kala gaaray khasaare xoogan maadaama dhinacyadaasi hubka culus muddo saacada isku adeegsanayeen. marka laga soo tago sheegashada hadalka Al-Shabaab oo dagaalka halka ka dhacay ay guula ka sheegteen ma jirto cid ka madax bannaan oo xaqiijin karta dagaalka saaki halka ka dhacay khasaaraha ka dhashay walina ma jiro wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada xoogga iyo kuwa Hirshabeelle. xaaladda deegaanka ayaa weli kacsan waxaana Qalimo oo ah deegaan istiraatiiji ah kuna yaala wadada xiriirisa Balcad iyo Jowhar laga dareemaya dhaqdhaqaaq xoogan oo dhinacyada ku dagaalama Al-Shabaab iyo ciidanka dawladda ay wadaan. dhawaan ayay ahayd markii Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen magaalada Balcad oo muddo kooban ay la wareegeen walow markii dambe ay isaga baxeen. sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hore u shaacisay shalay in 21 ka mid ah Al-Shabaab oo xubno sare ah ay ku dileen gobolka Shabeellada hoose taas oo sheegtay inay qayb ka yihiin howlgallada dawladda ay waayihii dambe ay kula jirtay ururka Al-Shabaab sida deegaanada ay gacanta ku hayaan ee labada gobol ee dariska Shabeellada dhexe iyo Shabeellada hoose kaga saari lahaayeen. markaana Eliteria Cabdulqaadir oo ka mid ahaa dhalinyaradii Soomaaliyeed ee tababarka lagu qaaday dalka Eliteria oo ka soo goostay goobaha ay tababarka ku qaadanayeen ayaa soo bandhigay xogta dhalinyaradii tababarka lagu qaaday dalka Eliteria. Cabdulqaadir ayaa xuseen dhalinyaradaas qaar la dilay qaarna la waayay sidoo kalena kuwa haatan halka ku sugan ee lagu adoonsado waa sidoo Xuseen waraysi uu bixiyay ayuu ku sheegay in dhalinyaradaasi inta ka nool ay ku jiraan xaalad adag isagoona waalidiinta Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka dhiidhiyaan adoonsiga wiilashooda lagu hayo ee Eliteria ku sugan sidoo Xuseen. Cabdulqaadir ayaa sheegay in dhalinyarada qaar la dilay halka kuwa kalena ay isku dhacyo iyaga iyo ciidamada Eliteria ay ku dhinteen oo qiyaastii 400 oo wiil ay ka badan yihiin oo tababarka kuwa lagu qaaday Eliteria. dhammaanba tirada dhalinyaradii Soomaaliyeed ee lagu qaaday Eliteria waxa lagu sheegay 5400 waxaana Xuseen in 400 oo ka mid ah dhalinyaradaas haatan aysan noolayn. afartii bishii Oktoobar ee sanadkii 2020 ayuu Cabdulqaadir sheegay in tababarkoodu u dhamaaday wixii intaa ka dambeeyay ay ku jireen xaalado aad u adag oo nolol adag ah ay ku haysata dalka Eliteria. wiilkan ayaa sheegay inuu ka mid ahaa dhalinyaro oo ka soo goostay xiriyaha tababarka Eliteria kuwa oo qaarkood dhex ku geeriyoodeen. dhammaanba dadka Soomaaliyeed ayuu Cabdulqaadir ugu baaqay inay dhigaan banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan dhibaatada dhalinyarada Soomaaliyeed Eliteria ku haysato sidoo Xuseen. hadal hayn badan ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku maqan dalka Eliteria tababarka lagu qaaday hore uga dhalatay kuwaas oo la Xuseen ay ka qayb galeen dagaaladii xooggan ee ka dhacay dalka qaar kalena ay dawladda Eliteria danaheeda qaaska u adeegsato kuwaas oo mar hore la Xuseen ay tababarka ugu dhamaadeen balse hadal hayn ah maalmihii dambe ay socoteen dalka dib loogu soo celinayo ilaa haatan aysan soo gaarin. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa wiil Soomaaliya u magacaabay xilal sare oo ka qabanaya dawladda Mareykanka. Xamse Warfaa oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku biiraya maamulka madaxweyne Joe Biden isagoona la taliya sare ka noqonaya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Xamse oo hadda ah gudoomiye ku-xigeenka waaxda shaqaaleysiinta iyo horumarinta ee dhaqaalaha ee dawladda gobolka Minnesota ayaa noqonaya Soomaaliga ugu darajada sareeyo oo madaxweyne Mareykan xil u magacaabo. Xamse ayaa shaqada ee dawladda ee gobolka Minnesota ka tagay 17 bishan January markaas oo dib ugu biiri doono wasaaradda arrimaha dibadda isagoona kaalin weyn ka ciyaari doona sare u qaadida dimuqraadiyadda dunida iyo sidoo kale imaatanka qaxootiga ee Mareykanka. Xamse ayaa ku biiraya xafiiska dadweynaha ee qaxootiga iyo sidoo kale socdaalka ee wasaaradda arrimaha dibadda oo shaqadaasi ay tahay kaalinta barakacayaasha. xafiiskan ayaana sidoo kale ka caawinaya madaxweynaha go'aanka gaarista tirada qaxootiga imaanaya Mareykanka sanad kasta. xafiiskan ayaa sidoo kale maalgelin siinaya hay'adaha dib u dejinta qaxootiga. Xamse waxa uu tagay Mareykanka isagoo qaxooti ah 1994 wuxuuna bartay culumta siyaasadda iyo maamulka kaas oo ka baxay sanadkii 2014. tilaabadan uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ugu magacaabayo wiil Soomaaliya
la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaana ah mid farxad gelisay Soomaalida ku dhaqan ee dalka Mareykanka maadaama sheegeen kaalin muhiim ah inuu uga soo bixin doono oo ay u baahnaayeen. Inta ayaan ku soo gabagabaynaa barnaamij wareedkan aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News mid lamid inta kulmi doona nabadgelyo.